shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar iyo caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay taageereen go'aankii dhexdhexaadka ah ay ka qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya wadamada khaliijka. Shacabka ayaa waxa ay dowlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ugu baaqeen in ay go'aanka dowladda Soomaaliya ay qaadatay ay la qaataan ayna joojiyaan ka soo horjeesiga dowladda federaalka Soomaaliya. Shacabka ayaa waxa ay sheegeen in ay u hoggaansanaadaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waa kuwan shacabka oo ka hadlaya arrimahaasi. runtii waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada waxay qayb ka yihiin central government-ga dowladda dhexe awoodna uma lahan heshiis caalami ah ama agreement inay galaan ay la galaan wadamo maxaan ku raadahay shisheeye sida khaliijka haday tahay Imaaraadka iyo dowladaha Carabta sida Sacuudi Carabiya. marka waxaan leeyahay go'aanka diblomaasiyadda ama maxaan ku raadahay arrimaha dibadda waxa looga dambeyn karaa oo maaragtaa go'aankeeda iska leh central government ama dowladda federaalka Soomaaliya. waxa socday bariyahan Sacuudiga Santiri iyo Imaaraad ba Santiri iyo maxaan ku leeyahay maamul goboleedyo kala qaybsan waxaan taageersanay anaga dowladda dhexe federaalka waxaan ku taageernay Sacuudi Carabiya waa dad walaal ah qadarna waa dad walaal ah dhaxdooda dhexdhexaadin baan leenahay moogiye in maxaan ku leeyahay qolo alla kala safana sharaf maaha mana dhici jirin Soomaali hore uma dhici jirin waayo waagii Carabta isku dhaceen iyo Masar ay isku dhaceen dhexdhexaad bay ka ahayd dowladda Soomaaliya waana ku amaaneed markii dambe waa la isu yimid dad walaalaha kala ma tagaan arrimaha khaliijka ah dowladda dhexe waxyaabaha ay ka qaadatay waa arrin xukuumadda loo idmaday waaye waa arrin dastuuri ah sababtay tahay arrimaha dibadda ah waxa ku shaqo leh dowladda dhexe maamul goboleedyada shaqo kuma laha maamul goboleedyada waxay leeyihiin fikir ahaan inay dowladda dhexe raacaan ay leeyihiin la tashi way ku leeyihiin laakiin go'aan ka qaadashada waxa iska leh xiriirka dibadda waxa iska leh dowladda dhexe arrimahaas dowladda ku saxan maamul goboleedyadana waa la saxaa oo baarlamaan ay leeyihiin golo wasiiray leeyihiin waxa go'aanada qaata waa hoggaanka madaxweynayaasha waaye maamul goboleedyada hoggaamiyo laakiin maadaama ay hoggaamiyaan hoggaanka dad ayuu kala dhaxeeyaa waa awood qaybsi baarlamaan ay leedahay xukuumaday leeyihiin xukuumadda iyo baarlamaankana kuma raacsana waa go'aan ay ayagu kaligood ay qaateen waa taageersanahay dowladda dhaxan taageersanahay iidaana awoodda iskale wixii arrimo dibid ayaka iida iskale waxa iskale farmaajo iyo xasan cali iskale hogaaminta baarlamaanka golaha dhaxa iskale oo qaran ayaka inay saas keenan ninkii agadaysahayn uu ka og imay sharci ah keenay cidii tiri dawladda warkeeda ma jiro cidii tiri taas meey agadaysahayn keenay adduunka waa ka jira federaal laakiin dawladda dhaxa hogaamisa wax qabadka dawladda hadda waxa la yiri mood yaa u dambeeyay kan galabta la wadiyaa u dambeeyay wax qabadka dawladda waxa ku cadeynaa xal caawimadow in diyaar soo degtay dhanka kale Suldaan Axmed Shiikh Shucayb oo kamid ah salaadiinta deegaanada Hirshabelle ayaa asagana waxa uu la hadlay maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya isagoo ugu baaqay in ay u hoggaansanaadaan dowladda federaalka Soomaaliya. waa kan suldaanka oo ka hadlaya arrimahaasi. aragtidayga horta dowladda dhexe oo qaranka iyada saxan nimanka maamul goboleedyada loo dhiibay gubernatorial waa awood madaxweyne ma haystaan wadanka waxa madaxweyne ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo reer wasaare uu leeyahay marka khoosaar oo wax loo dhiibi waa maana awood hada ay wax ku raacaan ama ku diidaan malaha gubernatorial waaye seedkooda ogaadana wadanka sharci waxa ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukumo ilaahay ka sakow marka maamul goboleedyada gubernator waa maana ay ismudi madaxweyne inay yihiin dawladda in raacaan waa ku khasbayeen arabna waxa anagu ma taageerinayo waxa wata waa kuwa Sacuudiga u sacbinayo akawaanto waana Sacuudi marabno mana taageeri doogni mana taageerin waxa waafaqsanahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda gudoomiyaha baarlamaanka wax alla wixii gaareen ayaan taageersanahay maamul goboleedyada gubernatorial waaye madaxweynayaal ma aha seedkooda ku okaadaan ra'iisul wasaaraha qaran dumis looma baahna labada xukuumo oo hadda u sareeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sharci waaye maalin walba ma ku jireyni xurbinaan soo murdaa annagu soo murdina ma ku jireyni sharci waaye ninkii maanta oo tilaab qaado hadii la rida liira dadweynahaas waa khaldayiin astoosiyaano madaxweynaha sharciga waa waafaqsanahay waana taageersanahay go'aankiisa na jiro. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Juba Shabelle News magaalada Jowhar.